ruuxda iyo qaab dhismeedka jirkeeda oo cajibisay dad fara badan oo ku nool dunida dacaladeeda waxa ay keentay in laga dhex qayliyo. waxaa aniga dhex qayliyo rag kaliya ma ahan, waa rag, waa dumar, waa hooyooyin, waa ilmo. dee waa la yaabaa adduunkii dhan. dee marka quruxdii soo bandhigay dee naaga aqaana ku jira dee oo waxuu ahaayo waa ka qurux badanahay. qofka aan ka hadlayo waa Samara Steel, waa gabadha ugu quruxda badan waqti xaadirkan gabdhaha reer Galmudug ayay la soo daristay xaalad adag oo caafimaad darro kadib markii ay rag iyo dumar badan ka dhex qayliyeen kana heleen quruxdeeda. Samara oo baryahana laga waayay baraha bulshada ayaa iminka lagu quraan saaraya dugsi quraan ku yaala degmada ay ku nooshahay Gurceel, waxaana booqanay dugsiga lagu quraan saarayay Samara iyadoo macalinka iyo ardaydiisa ay ku akhrinayaan kalaamka Alle si looga xijaabo isha bini'aadamka. Samara oo nala hadashay quraan saarka kadib waxay noo sheegtay in ay habeenadan hurdo ladin oo laga dhex qaylinayo, loona sheegay in rag iyo dumar badan oo quruxdeeda ka helay ayaa ka dhex hadleen iyaduna ay dooratay inay isquraan saarto. qof haba yaraatay ka yeelay ma jirto, gabar baa ka qurxoon. anigana waan ogahay inaan qurxoonahay, bulshadana way ogtahay, ilaahayna wuu ogyahay. marka horta maraad isku eego quruxda dadka horta iga sheegaya markaas baa horta rumaystaa. dee qof inaan qurux badanahay dee bulshada ay sheegtay hadartan anaa is sheegayo. quraasar baa ii socday maanta inay soo gabagabay, alxamdulillaah ilaahay baa mahad iska leh. dee adigan ay daawanayaan dee maanta wixii ka bilowdo waxna igama qaadi karta il iyo waxaas oo dhan. horta waxa igu daran wax kale ma ahan, waa marka laamiga aan maray habeenka cashada aan soo doonanayo. dee markaas baa horta igu daran, dee aniga xataa wallaahi waan xishooda toobto dadka dhan ay soo eegaya kor aan baan dareemaa madaxa sikay xanuunay. dee waa ka dee gabar ka dhex qayliso inta lagu arkay. dee rag waxa arki jiray gabdhaha ka dhex qayliya, laakiin gabar ka dhex qayliso inta lagu arkay waa ma dhicin adduunka. aan hadda ugu horeeyo adiga ka dhex hadlo dumar dee gabdho aan garanayo aan hebla dhihi kala maxad waxa maraga nagu qurxoontahay qaraar baa haayade anigu qaraarayaan laakiin waxa la yaabaa ka qurux badan adduunka dhan baan ka qurux badanahay istajiyan ilaa wallahi si fiican bay soo dhaweeyeen. maadaama aad quruxdooda soo bandhigtay anigana waxaan kugu dalagalnay quraan inaan ku saarno, يعني أيقونوا فرحة بيود أنا قلنا فرحة بإيه هيت قرآن كأنه واحد كسر واحد كله تهويرات مالهن حجاب قرآن كحجاب بإيه هي قرآن لجموه مرمى بتاعتهم بهويراته قروح المركز صبري قلنا وحن سكر قرآن ك يحوه يشرب بدن أندريم ومسكح ذسكي حنونته يعني قرب بدن أندريم سدرت أيان قرآن كسر لذاتك بدن ويجرح قليات ما أنتوا حكيم ما دكتور قرآن صدق ما يا قرآن يسوع ساراي إيش بالأدك يا قرآن ساراي إلهي مهدي الحمد لله وأنتو إيشو جوابي حد رأيان كإمادة أنا وسامها والله هرت قرب بدن حتى أنا وهبينكي وانس حاولنا مسكح الجوجوع ده واحد صدق واحد يقول بلا هبينك أمبرها بالشدة كصابيري قفل بنا الجسين بدي كرتيد مركو أركيسا وهاللينا يقولوا حدي دني حوها دساس من حوها عن قراص كسارة والله هرت مرة بحوها وكوا أن أدقوا هل أنت كوب بورن كوا إسكعاتا كوا من مذو لكن دني هلك مليت واحد صدق نرشي ده هرقة سوتها وتشي أنت قفل دوين ده سندر ده إلهي حاول يشوف الشمال ده ما أسلم استرك أنا استلمامي بكلام بقروح ده أنا بس كنا أحسن بقى نكبرنا إنه يقول حنتا ما بقى مسنبه وهكا نكبرن موضوع ما نقولته ما يا ما بقول لك تركيني ما ده حنا يرتاح يقول إحنا بالعكس أنا نكبر لا لا